أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. maantay oo maalin axada bisha shawaal 19 kuna 437 taariikhda hijriga waafaqsan 24 bisha 7 2016 waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala fadligiisa iyo ihsaankiisa oo ilaahay nagu waafajiyay halkan inaan ka bilaabano kitaabkan la yiraahdo Safiinatun Najaa. مسجد كان ليراه مسجد الخالق أي دوركي وجودن بيجي كتاب كان عن كبر الله ونيو سيدنا وكلا إله نوى فجيه إلى كتاب منهاجك إلهي سبحانه وتعالى ونوى فجيه إن دراسة كوجار نفقه وحياه دوركي مسجد الخالق عن كوا آخرين إني وحمد الله وني سفينة ده بشهر ربيع الثاني كودة دي كنا فربقل iyo 23 kuna 423 bisha rabiicu thani kowdeedii maalin axad ah ayaa halka ku bilawnay haddana waxa la maray 1437 waa taqriiban muddo laga joogo 14 sano ayaa dowrkaas laga joogaa safiinahan ku bilaabaynay masjidka Masjidul Khaliq إلى منهاجك إلهي فضل جيسا يا إحسان كيسا ونقارسيي أفر يتوانسنا كبعد يا إلهي سبحانه وتعالى وحينوفذ إيها هدنا الدور كي فقهك إن ندبئ بالله بأنه إلهي وحان ويدي سنينا سبحانه وتعالى بفضله ومنه وإحسانه وحان كويدي سنينا سيدي الدور كي هربا سنة بدقرياء يدقنا شيء توفيق دي سبا إلهي ونوسيي haddana dowrkana in ilaahay tawfiiqdiisa iyo ihsaankiisa ilaahay noogu dhameystiro ilaa qaayadeena ilaahayna subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa inuu qabuul ilaahayna siiyo waxaan ilaahay agtiisa aan laga aqbalin waxay iska noqonayaan xutaala buunsha iska noqonayaan oo wax qiimo ah iyo wax wasni ah iyo wax miisaan male cibaado waxa jirta intaasoo sano aad ku daalaysay oo ku dhibtoonaysay haddana wajiga lagaaga dhufanayo wax ilaahay subhanahu wa ta'ala oo qalbigaaga ku daalacday oo wanaagsanayn awgeed marka ilaahay ikhlaasna ha nasiyo qabuulna Allah nagu arzuqo darsigana Allah noo dhameystiro ilaa qaayadeena aan ka gaarayno kitaabka manhaajka ilaahay subhanahu wa ta'ala fadligiisa Allah noogu dhameystiro sida sawaabka ah ee toosana ilaahay u raali ka yahana ilaahay hana waafajiyo intaas ka bacdi kitaabkan safiinatu salaad وكتابك بداية فقهية أما أحكام تبا بالله ويا أساسها قفكنا سيدي سباها دوسا أساسك كتوسين نهايتنا كما توصو قريقا وادوكسونتين قريبا قريقا وكا أساس ألقيهي وأساس كيسا اللوغد دالو وأساس كيسا شبكا يبرت الله أتكيو وكاد كيس بدن yahay guriyaha kale qofka bini aadamkuna waa sidaas oo qoontiisa markuu bayska hoose uu iska dhiso oo bilowga uu iska dhiso nihaayadiisuna waxay noqonaysaa nihaaya mushriqa dhammaad waxay noqonaysaa iftiin iyo nuur leh waxay noqonaysaa qof cilmigu uu u furmay oo aqoontana ilaa xad mustawa wanaagsan ka gaara لكن قفكو هدوبة تعليمته مركو هربا منهاج إيو بخاري وكبلابو وحو نقنا قف وقتك اسكالو ميي وحنا أنفايديسا ولذلك عبد الله بن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه مركو فسرائي كونوا ربانيين قولك إلهي كونوا ربانيين نقضك هو رب الله آنيي وربي أقعي آيات مركو فسرها يا عبد الله بن عباس وحكو فسري كانوا يربون صغار العلم قبل كباره وحلوا لجده ويري علمي يرير إن دتك لغو برباريو أو لغو تربييو إنت أن لقارين
cilmiga weyn intaan la gaarin marka qur'aankiiaba yani na amraya oo tawjiihaadna siinaya in marka hore cilmiga qaybaha masaa'ilka yaryar iyo kutubta yaryarka ah in cilmiga marka hore aan ka bilaabanno ilaa markaas aan ka bislaanno oo aan ahal ugu noqonno kutubta waaweyn inaan cilmigooda aan fahamno qof kitaab weyn ama kutubta waaweyn cilmiga looga bilaabayo waxay la mid tahay caruur xala dhashay oo hilib afka loo gelgelinayo kale xalu dhashay hilibaadna afka u gelgelis waxaan leedahay naxariisaan ula jeedaa naxariis ayaan ula jeedaa had leedahay caruurka hilibka afka aad u gelgelinayso waxaa laga yaabaa qofka khabiirka u ah caruurta hadduu ku yidhaaho war caruurkan waa dili inaad la yaabto oo tidhaaho hilibaa masiina see u dili inaad tidhaahid marka waa sidaasoo kaleoo qofka dadka uga bilaabaya minhaaja ama tafsiir qof bilow ah ama bukhaari uga bilaabaya waxaa laga yaabaa qofka u naseexaynaya inuu la yaabo wuxuu la mid yahay caruur hadda dhashay oo cad hiliba afka u gelinayuu la mid yahay ma qaadan karo awoodna uma laha uu ka qaato awoodaha bini aadamka qaarna waa awooda xisi ah qaarna waa quwaad macnawi ah waa awoodo macnawi ah maskaxdu waxay leedahay awood macnawiya iyo itaal macnawiya ay ku qaadan karto cilmiga waaweyn ilaa xad ay gaarto ay ku qaadan karto marka hore marka maskaxda waa in lagu soo anqariyo oo lagu soo bilaabo kutubta yaryarka ah markaa kabacdi waxaa u fududaanaysa qofka kutubta waaweyn ee cilmiga inuu fahmo ayaa u fududaanaysa khusuusan hadda cilmigan hadda aan bilaabanayno oo kitaabkiisii ugu hooseeya mukhtasarka ah oo safiinahan ka bilaabanayno waxaa la yidhaha magaciisa cilmu alfiqhi cilmu alfiqhi waxaa kaloo la yidhaahaa cilmu alaxkaam cilmu alaxkaamna waa la yidhaha waa cilmigii nabigeena sala allahu calayhi wasalam cabdullaahi bnu cabbaas uu ugu duceeyey allaahuma faqihu fi ddiin wacallimhu ta'wiil اللهم علمه في الدين اللهم فقهه في الدين إله الدين فقه كسي ودين فهم كسي عبد الله بن عباس وعلمه تأويل تفسير كقرآن كان إله بر نبي صلى الله وسلم وبارك عليه حديث كلا صحيح وحكيري من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين qofka ilaahay khayr uu la doonayo diintu ilaahay fahamsiiya idan marka ogaaw si kastoo manaasib adduunya aad iga gaartid si kastoo daaradda dheer iyo dahab iyo dollar aad u haysatid haddii diinta aan lagu furin waxa tahay faqiir ilaahay agtiisa saboolad ka tahay waxaad haysato oo sharaf ah oo qiimo ah oo gacanta kuugu jira malaha sharaftu waxa weeye waa sharaful ilmi wal amali bih waa cilmiga in la barto laguna camal falo bini aadamka taasaa sharaftiisa iyo wanaagiisa iyo qiimihiisa ay ku jiraan haddaad magac doonayso ilaahay agtiisa inaad ku yeelato cilmigaasaad baran waadna ku camal fali haddaad adduunyo rabtana cilmigaasaad baran haddaad aakhira doonaysana cilmigaasaad baran khayr adduunya khayr aakhiraba isagu ku dhex jira hadda waad la socotaan maantay waxaan bilaabaynay بعد صلاة الظهر وحن بلاوني كتاب صحيح البخاري تاريخ صحيح البخاري إمام البخاري وحكو جري شيخ وحلي جري محمد بن إسماعيل ولا الكيسة جري ولا به جري أحمد بن إسماعيل ولا الكي وحو إسقال لحدي دينع الزراعة دير قضته إسكال نقضي شيخ ولا الكي بخاري نمحو لحدي شرفتي علمك هي عبادته لكن ما أنت يا يقانا شيخ ولا الكيس بخاري ولا الكي عد ما غشي حتى ويرت شيخ إنه لدى شيء نيل لديه جري أحمد بن إسماعيل البخاري إنه ولا الكيس عد ما غشي حتى ويرت مركز شرفته ماشي ويلك ولما مع ذلك بخاري ولا الكي وحوينا ولا الكا وينا شيخ يرى ودا يرى
ما أنتنا الشيخ قفل بمقعيس مغشة رحمه الله تعالى دقيقة الدنيا كم إذا الصوم مرته إلا إمام البخاري والله الدعية قف منابرته وقد دعيناي قد مارت الدروس تدحدد وقد دعيناي قف محاضرة تدحدد وقد دعيناي خير كاسي أجر كاسي ثواب كاسا أسعد شرفت مقعيس قف مسلم مقل بمجرم وندعيناي مركز شرفته وحيكون درتها فضيلة العلم والعمل به خصوصا فقه كان علمك تفسيرك أما علمك حديثك والله بدل اللي يسكيره أصلينك وعلم اللي قصوقاتي كتابك إلهي هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه هي إجماع هي قياسك ومسادر التشريع الأربعة لي مسادر التشريع الأربعة meelaha laga qaato xukunka waxaasi waa xalaal iyo waxaasi waa xaraam afartaas laga qaataa kitaabka iyo ahadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo ijmaaca meesha culimadu ay isku waafaqeen iyo qiyaaska afartaas oo ku dhisan yahay fiqiga ma aha sida dadka qaar ay u fahmeen ra'yi qof uu qoray aaraa'u rijaal ma aha qof ra'yigiisa iyo caqligiisa wuxuu ku sameeyay ma aha waa masaadirta fiqiga waa kitaabka ilaahay ahadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi ijmaa'ul umma iyo qiyaaska afartaas ku dhisay mas'ala aan daliil wadan kuma bajirtaba mas'ala aan daliil wadan oo kitaabkeeda iyo sunnaheeda iyo ijmaaceeda iyo qiyaaskeeda aan wadan kuma jirto laakiin culimada jazaahumullahu khayran jaziilan wa nafa'ana bi'ilmihim waxay soo khulaaseeyeen oo ka soo dhexbixeen meel adigu aadan ka soo bixin karin xugun ay nooga soo dhex saareen meel adigu aadan ka soo saari karin cilmi ay iyagu ka soo saareen walidaalika hatta kaftankii nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga kaftan uu kaftamayay ay boqolaal mas'alo ay kala dhexbixeen culimada ya aba umayr ما فعل النغير حديث كاس وحديث كفتما النبي صلى الله عليه وسلم ويل يرو لك كفتما وحير يا أبا عمير ما فعل النغير شنبرك النغير لبيه جري محوس سمي يا أبا عمير لا بقولوا مسألة وحكى بدنا حافظ بن حجر وعسقلاني كتاب كيس فتح الباري وكل شيء إن علماء قار أي كردح بحين كفتن سيء وقردح بحين هذه مقال وحكوم مقدار النبي يقولوا كفتمها صلى الله عليه وسلم لكن انت مسائل احكام الله قال دحبح علماء مركب ميلها اللطائف تاهي قرقرسونيه دقائق الكتاب ودقائق السنه اي وحي كلا سو دحبخين علميغان فقهيغا لكن هدي ادغو مقامka iyo manzilada iyo makaanada aadan gaarinin waxa laga yaabaa inay kugu cuslaato fiqhigi inaad xadiiskii hadaa tira waa ku kaaftoomi oo xadiiska bis aan iska akhrisan ahkaamta ama fiqhigana akhrisan maayo waxa laga yaabaa adawaadkii iyo cilmigii lagu la soo dhaxbixi lahaa inaadan haysanin dad waaweyn taas way ku dhacday dad waaweyn oo inaga naga horeeyay oo ilaa 1000 sano ka hor culimadii noola ayaa qaarkood waxay isku dayeen inay ku kaaftoomaan cilmiga xadiiska markaas waxa uga dhacday maadaama علمي حديث كفهم دقيقة وباهية هي أيها وحي افتودين مسائل سيدة صواب كاي سيدة صحدة أن وافق سنين ففكي الرباوح أغرين كرا ابن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي كتاب كيسة تلبيس كا وقهد لي يعني علمي حديث كا كليجينا نقول كافتومي كري وباهية هي فقهي إلا فهمه حديث كنفتيس حديث كنفتيس إلا فهمه maxay la hadda koor waxa dhacay ibn al-Jawzi wuxuu sheegay in sheekha ayaa hadda koor wuxuu maqlay xadiis nabigu uu yiri sallallahu alayhi wasallam naha rasuulullah sallallahu alayhi wasallam an yasqi ar-rajulu ma'ahu zar'a ghayri rasuulka wuxuu nahiyay oo uu diiday qofku biyihiisa inuu waraabiyo beer kale biyahaaga beer kale ha waraabin oo ha cabsiinin xadiiskaas uu maqlay markaas wuxuu yiri
نحن نستغفر الله من تصريح ما فضل من الماء إلى جيراننا ووحو إلى هذا كهر بيرتي إذا مركان وراب سنايو بيها كسوهرة بيراها كلو درس كاهن سينجري إلهو إقع فيوري لا دنبي هد حديثك وسخل دان أفهمي حديثك وسخل دان أفهمي نبي وحو النهي صلى الله عليه وسلم ننكو إنو بيه سورابيو ففكر بيرتيس إنو ورابيو وحو فهمي بيرتا مركاد وراب سنيسيد درس كاغا بيها مسين كرتد وحي كسوهري ورابك بيه مركز سوري الله يقع في درس كاغا بيه سينجري سخل دان أفهمي marka sheekh faqiiha cilmiga xadiiska fiqiga isku yaqeenay ayaa u naseexay wuxuu yiri wala jeedada laga leeyahay waxa weeye haweenka gaalada laga soo qafaasho dagaalka gaalada lagu soo qabto oo sabaayaadka loo yaqaan oo adoomada ah haday uur leedahay ninkii soo qafaasho oo qismi ahaan qoonda ahaan ay ugu soo aado hadii islaantii ay uur leedahay adoontii ما استعمالي كرتد لا أي كدشو ساس النبي يقول جيدا صلى الله عليه وسلم إلا ناقت ننك لا يؤابورنته ننك لا يؤابورنته بيها هورابين مركا وها جماع وها استعمال إلا وأبورنته يقف كان أوري لاله إلا أي كدش ساس اللولة جيدا مركا سيري إله يقع في سخلدن الحديث كو فهم جروي سخلدن أي نفهم جروي الحديث تصال الله بعد وواحد جرسلا سوكلا دعدي إمام الخطابي رحمه الله تعالى صاحب معالم السنن كتاب كل معالم السنن الشيخ إسكالوي وحونا أول من شرح صحيح البخاري ذاتك هو الرئيو كتاب صحيح البخاري شرحانه وكجري وحويري مشايخ القف كميدا وحوم مغلي حديث كان بها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق نبي قوحه النهي صلى الله عليه وسلم حلقوين إلا السمايو حلقوين إلا السمايو قبل الصلاة يوم الجمعة ما لنت الجمعة صلاة كهر إن حلقوين إلا السمايو أو خطبتي ولا آخرين ولا شاكيستو والنبي قول النهي حديث كساسة اللولو جيدا مركا شيخا حديثك مركو مغلي ورت حديثك ضبطكيسي شغلكيسي وهو خلده وهو اخريي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلق لانكيو ريبي عن الحلق معنوه محو نقول مركا نبيغا وحو النهي حيرشده قبل الصلاة يوم الجمعة مالين جمعة إلا حيرته صلاة كهر نبيغا النهي وحرام وكدغي markaas wuxuu yiri sheekha xadiiska akhrisan jiray wuxuu yiri madaxayga ma aanan xeerin maalin jumca 40 sano 40 sano madaxayga ma aanan xeerin oo waxaan u marin jiray madaxa in la iska xiro maalin jumca inay xaraam tahay ila xadiiskii si khaldan u fahmay waxa loola jeedaa aan ilxilq xilqooyin sheeko in la sameeyo khudbadii oo la akhrinayo tusaale saddexaad dhacay oo kun sano ka hor yaani sheekooyinkii dhacay iyo qofkii xadiiskii waa akhrisan yiri laakiin fiqhigii aan aqoon u lahayn waxa kale ibn al-Jawzi uu sheegay sheekh la dhihi jiray ibn Sa'id kana kabiir al-qadr fi al-muhaddithin nin muhaddisiinta dhexdooda sharaf weyn kulluhu ahaa maca dalika isagoo xalqadii cilmiga fadhiya ayaa haweenaya u timid waxay tiri ya sheekh ma taqulu fi bi'r saqadat fihi dajaja sheekh ceelkii biyahan ka cabi jirnay doora nooga dhacday biyaha xukumkoodu maxay noqonayaan markaas wuxuu sheekhi ku celceliyay halla qadaytumuha war ceelka maxaad u dabooli weyseen ceelka maxaad u dabooli weyseen hadda sheekhu lama daboolin oo masaladii waa taagan tahay masala dhacday waa هلا غديتموها بس وugu jawaabay inaad dabashaana fiicnay marka sheekh marka fiqiga akhristo meesha fadhiyay ayaa wuxuu yiri islaan yahay biyaha fiiri haday qulatayn gaareen oo biyaha ceelku ay qulatayn yihiin ma nijaasobayaan ilaa inay isbedelaan maahan haday laakiin qulatayn ay ka yar yihiinna
waa nijaasoobeen iyadoon isbeddel loo fiirinayn waa masalo basiida iska ahayd marka dad waaweyn oo ahlulcilmi ah oo isku dayay inay xadiiska kaliya ku kaaftoomaan iyagoo macaanidooda si daqiiqa macnihii xadiiskiiba aan fahmin ayaa xukun ka qaadan waayay marka maxaa la rabaa aljamcu bayna alxadiisi waalfiqh qofku inuu isku darsado xadiiskii iyo fiqhigii labadaba inuu isku darsado ayaa la rabaa waxaa tusaale kale ibnuljawsi sameeyey kitaabkiisa talbiiska ah wuxuu yidhi haweenayaa waxay u timid caliy bnu daawuud almuxadith alkabiir sheekha caliy bnu daawuud la dhihi jiray wa kaana yajlis bayna yadayhi 1000 nafsin kun qofoodaa cilmiga xadiiska ka dhegaysan jirtay kun qofood ayaa cilmiga xadiiska ka dhegaysan jirtay sheekha marka way u timid waxay tidhi xalaftu bisadaqati izaari waxaan ku dhaartay sheekhow maradayda inaan sadaqaysto ee sharciga islaamku muxuu waajib iga dhigaa maradayda inaan sadaqaysto ayaan ku dhaartay markaasuu wuxuu yidhi markii hore marada imisaad ku soo iibsatay waxay tidhi waxaan ku soo iibsaday 22 dirham 22 maalmood soon uu yidhi marka soona kugu waajibay 22 maalmood inaad soontaa waajib kugu noqonayo sheekhu maradan inaan sadaqaystaan ku nadray wuxuu marada markii hore maxaad ku soo iibisay 22 dirham 22 maalmood calaa dirham wuxuu ugu dhuftay hal maalin ugu dhuftay halkii maalin hal dirham maxay ahaydna masalada sawaabkeeda inuu yidhaa haddaad maradan ku nadarto inaad sadaqaysato iyadaa waajibku waa bis wax kale lagaama rabo ilaa lacag sadaqadeed maba u banbixin mana ku nadrin iyada sadaqee maca daalika waxaa hortiisa fariisan jiray ilaa 1000 qofood ayaa cilmu alxadiis ibnu saacid ka dhagaysan jiray sidaas awgeed waxaa loo baahan yahay dadka waaweyn oo naga sharaf badnaa naga cilmi badnaa naga aqoon badnaa haddana luqa alcarabiya nooga aqoon badnaa qarnigii nabigana aad ugu dhowaa sala allahu calayhi wasalam innagu waxaan joognaa gebagabadii noloshii aakhiru zamaankiiaan marayna dadkaas ayay u suurto geli weysay inay dhahaan xadiis kaliyaan ku kaaftoomaynaaho biduuni fiqhi iyadoon xadiiskii fahmin macnihiisii iyo axkaamtiisii marka waxaa la dooni mar walbaba aljamcu bayna alfiqhi waalxadiis in mar walbaba la kulmiyo xadiiska iyo fiqhigiisa markaasaa qofku waxaa u dhammaystirmaya shareecadii islaamka qaybaheedii ayaa u dhammaystirmaya kitaabka marka safiinaha ah intaanaan u gudagelin waxaan ka tarjamaynaynaa oo taariikh yaroo kooban aan ka sheegaynaa sheekhii iska lahaa oo kitaabka qoray oo alifay sheekha waxaa la dhihi jiray magaciisa saalim aabbihii waxaa la dhihi jiray cabdullah awowgii waxaa la dhihi jiray sacad awowgiisa kale cabdullah awowgiisa kale samiir waa saalim ibnu cabdillaahi ibni sacd ibni cabdillaahi ibni samiir alxadrami ayaa la dhihi jiray sheekha kitaabka alifay sheekhan wuxuu ku dhashay dhulkan yaman gaar ahaan qaybtan la yidhaaho xadramowt ayuu sheekhu uu ku dhashay waa qaybta koonfurta yaman ayaa waxaa la yidhaha xadramowt laba dowladood ay xilli hore kala ahaan jireen waqooyi iyo koonfur ay waddanku laba dowladooda kala xukumi jirtay yaman laakiin kabacdi way isku darsadeen oo waxay noqdeen hal dowlo inta hadda inhiyaarka iyo burburkan uusan ku dhicin hal dowlo isku noqdeen marka qaybtan xadramowt uu sheekhu uu ku dhashay safiiraha qoray waxa uu wax ka bartay markiisii hore qur-aanka markuu xafiday aabbihiis ayaa wuxuu ahaa nin sheekh oo weyn oo faqiiha aabbihii oo sacd ibni cabdillaahi ibni sumayr la dhihi jiray ayuu cilmiga uu ka bartay waxa sheekha cilmigii markuu bartay uu haddana ku darsaday culumta handasada injineeriyada la yaqaan iyo culumta yacni askarinimada uu haddana ku darsaday cilmigii diinta handasadana wuu ku fiicnaa culumtan tadriibka askarta sida loo tababaro iyo hubka noocyadiisana aad u bartay sheekha safiinaha qoray raximahu llahu tacaala xataa waxaa looga yeeran jiray dhulkan hindi si uu u tababaro ciidanka uu u tababaro oo khabiir wuxuu ahaa caskari uu ahaayo ciidanku barbari jiray hubka noocyadiisa iyo madaafiicda
ayuu bari jiray sida maaragtay loo rakibo iyo sida loo rido ayuu bari jiray ciidamada hindi sheekha rahimahullahu ta'ala waxa sheekhu kale ahaan jiray sheekh aad u cibaado badan waxay kutubta ka taariikhaynaya yiraahan kana yakhtimu alquran wa huwa yaduufu bil bayt alharam asagoo kacbada dawaafayo quraanka dhamay jiray quraanku wuxuu khatimi jiray asnaa ad-dawaaf marka sheekhu wuxuu ahaa ilaahay isugu daray aqoonta diinta iyo middan maadiga ah ee adduunyada iyo cibaado iyo akhlaaq ilaahay isugu daray subhanahu wa ta'ala ayuu ahaa jiray sheekha wuxuu geeriyooday taariikhdu markuu ahaa 1271 ayuu sheekhu geeriyooday Salim ibn Abdullah ibn Sa'd al-Hadrami sheekha kutubta uu qoray waxa kamid ahaa kitaabkan hadda maanta halkan aan ku bilaabanayno oo safiinaha ah iyo kitaab la yiraahdo al-fawaid al-jaliyah fi zajri an ta'adi al-hiyal ar-rabawiyah oo uga hadlayo ribada in la xiilaysto inay xaraamta ribada in si gaadma ah iyo magac kale iyo shaati kale in ribada inta loo geliyo aad tiraahid anigu riba beecaygu kuma dhisna oo beec xalaal ah oo nadiif ah ayaa beecaygu ku dhisan yahay inaad tiraahid oo xiilada ribada la iska ilaaliyo oo kitaabka alifay sheekh rahimahullahu ta'ala kitaabkan marka safiinaha waa kitaab mukhtasara oo aad u yar aad u gaaban laakiin waa kitaab nafcigiisu u ballaaran yahay nafcigiisu uu aad u ballaaran yahay waana kitaab ilaahi subhanahu wa ta'ala qabuul uu siiyay oo sheekha ilaahi uu ka aqbalay subhanahu wa ta'ala maxaa yeelay kitaabka in qabuul ilaahi uu siiyay waxa tusinaya maalintii sheekhu uu qoray ilaa yawmina hada qof kasto doonaya fiqhi ama ahkaam inuu bilowdo isaga uu ka bilowdaa ilaahina waa u barakeeyaa bilowgaasna qofka ilaahi waa u barakeeyaa oo qofku markuu kitaabkan safiinaha uu fiqhiga ku bilaabo waxa weeye ilaahaba u furfuraayaba cilmiga fiqhiga ilaaha u furfuraayo subhanahu wa ta'ala marka kitaabka safiinaha wuxuu sheekhu ku dadaalay fiqhiga wuxuu u qaybsamaa 4 qaybood hal qayb uu isagu ka hadli hal qayb ayuu ka hadli oo waliba halka qayb uu qayb kamida ka sii tagay sheekh rahimahullahu ta'ala si uu ugu fududeeyo dadka mubtadiinta ah ee bilowga ku ah fiqhiga si uu ugu fududeeyo cilmiga fiqhiga qaybta cibaadaadka la yiraahdo bisu ka hadli sidii cibaadadaada ay kugu saxmi lahayd sidii cibaadadaadu ay u noqon lahayd cibaado waafaqsan nidaamkii iyo habkii Allah uu u dajiyo Allah uu ugu talagalay subhanahu wa ta'ala marka cibaadaadkii oo u qaybsamaya salaadii iyo zakadii iyo soomkii iyo xajkii cibaadaadka afarta u si kala baxay sheekhu wuxuu ka hadlay salaada siday noogu saxmi lahayd wuxuu kale ka hadlay zakadii wuxuu kale ka hadlay soomkii saddexdaas qaybood bis ayuu ka hadlay sheekh rahimahullahu ta'ala xajkii uu ka tagay si uu ugu fududeeyo dadka mubtadiinta ah ee bilowga ku ah cilmiga fiqhiga ama qaybihi kale oo fiqhigu u qaybsamayo midalan qismiga la yiraaho yani qismu muamalat ama beeca loo yaqaano qismiga sheekha kama uu san hadlin qismiga la yiraaho ahkaamul usra ahkaamta qoyska ama loo yaqaan an-nikah kitab an-nikah isagana kama hadlin sheekha qismiga jinaayaadka loo yaqaan ama kitabul jaraaha loo yaqaan kama uu san hadlin oo qaybtaas wuxuu u daayay sheekha kutub kale waaweyn ayaa loogu tagi doonaa oo qofka ardaygu uu ka fahmi doonaa kitaabku marka wuxuu xoog saaray waliba asagoo ka hadli doona salaada iyo soomka iyo zakada saddexdaba ka hadli doona haddana wuxuu xoog saaray 90% uu ku saabsan yahay salaada 90% wuxuu ku saabsan yahay salaada kitaabku isagoo kitaab yar oo xajmigiisu iska yar yahay haddana waxa lagu arkay masaa'il fara badan oo manhaajkii aan ku qornayn ayaa lagu arkay kitaabkii safiinaha ahaa saasuu marka kitaabku wuxuu u yahay maca siqari xajmihi cilmigiisu uu aad u weyn yahay oo cilmigiisu uu aad u ballaaran yahay
waxaa muhiima marka qof walba doonaya in salaadiisu ay noqoto salaad waafaqsan salaadii nabigeena sallallahu alayhi wasallam inuu barto kitaabkan safiinaha maxaa yeelay hadda ka hor waxa laga sheegay min Soomaaliya salaadii wuxuu yiri safiina ka hor aan tukan jiray ilaahu iga cafiyo inaan janno ku galo iska daayo alla waana naarta ku gelinayo maxaa la soo rawo isaga dukan jiray cilmi uma lahayn aqoon uma lahayn marka waxaa muhiim mar walbaba cibaadaadka iyo salaada tasxiixeeda waxaa cumdo u ah tiir iyo udub dhaxaad waa kitaabkan safiinaha inaan fahamno kuna amal falno maxaa yeelay cibaadada haddii cilmi la'aan la iska wado dal iyo rafaad umba ka korarsatay mahana wax kaaga ziyaadaya ilaahay xaqiisa subhanahu wa ta'ala ma jiraan mana ka ansaxays walidaalika xadiis waxa jiray imaam ahmed oo musnadkiisa ku warinayay xudayfa bin al-yaman ayaa nina agtiisa ku dukaday xudayfa saxaabiga waa fiiriyay ninkan sidii u dukanayo aad u fiiriyay waa u yeeray markuu salaadii ka baxay wuxuu yiri salaadan imisa salaad tukanaysa 40 sano salaadan tukanayo 40 kaas sano ma sidan aad u tukanayso yiri anigu aan ku arkay markaas yiri 40 sano sidaasan salaad u tukanay markaas wuxuu yiri law mutta ala ghayri sunnati muhammad sallallahu alayhi wasallam wa baraka alayhi haddaad dhiman lahayd oo sidan aad ku dhiman lahayd dariiqii nabi maxamed kuma badhimateen uu yiri sallallahu alayhi wasallam wada kale oo khilaafsan wadadii nabiga alayhi salaatu wasalaam ayaad ku dhiman lahayd yiri haddaad dhiman lahayd waa 40 sano salaad uu tukanayay waa dadkii asxaabta soo gaaray dadka sida la leeyahay annaga maxaad u malayn marka waxa laga yaabaa dadka 40 jirada ama 50 jirada oo cilmigii diintan akhrisan safiinadii aan akhrisan 40 sano 50 sano inay iska shabkaxinayeen salaad aan maqbuul ahayn oo sidii loogu talagalay aan waafaqsanayn hadday dhintaan ay ku dhimanayaan jid aan ahayn jidkii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ay ku dhimanayaan limaada marka waxa loo baahan yahay si aan ugu dhimanno wadadii iyo sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam in salaadii la waafajiyo hadiyigi iyo jidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam in la waafajiyo waxaana nooga tarjumaya safiinatu najaa iyo safiinatu salaad waxay nooga tarjumayaan hadiyu nabi sallallahu alayhi wasallam fi salaat hadiyigi nabiga sallallahu alayhi wasallam salaada waxa macruufa hadiisu rajul al-musi salata ninkii salaadiisa xumeeyay hadiiskiisa waa macruuf oo nabiga agtiisa isaguna ku dukaday sallallahu alayhi wasallam ninkii markuu dukaday rasuulku u yimid sallallahu alayhi wasallam markaasuu rasuulku salaamtii ka qaaday nabiga alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri salli fa innaka lam tusalli ma adan dukame hadda dukuu ku yiri nabiga alayhi salaatu wasalaam marka taa xadiiska muxuu daliil u yahay qofku haddii salaadiisii cilmi uusan ku salaynin in la dhihi karo ma dukan afcaal kasta iyo cibaado kasta oon cilmi ku salaysnayn inay la mid tahay fakaannahu lam yata'abbad isagoon qofkaasi cibaadaysan oo kale waa soomay soomkiisii kuma salaysna cilmi kuma salaysna shuruudii iyo arkaantiisii ma soomin in la leeyahay waa dukaday markuu dukaday qofkii salaadii iyo cibaadadiisii kuma uusan salaynin ahkaamtii iyo fiqhigii kuma uusan salaynin jidkii nabiga alayhi salaatu wasalaam waxa la dhihi karaa ma uusan tukan hadda ka hor waxa jiray nina wuxuu yiri islaantiisu yiri kaalay waran ku sheegay imaadu ku yiri markaas tirsug waa tukan marka hore waa tukanaysu intaadan tukan horta imaadu yiri waxbaan ku sheegay markaas tirmaya salaadan hormarina marka hore haddaad wuxuu yiri salaada ka hormariso warkayga saddex dalaaqan kugu furay islaantii kama yeelina waa tukatay markay tukatay ay u timid maxaad iga iimaanu yiraahdo waa ku furay dalaaq mucallaqa dalaaqaagi wuxuu ku xiraa salaada inaad hormariso oo warkayga aad ka hormariso salaadii hormariso maaha maxaa noo yaalo yiri marka
ولا جهوير waxay tiri warbal aan meelaha culimo iyo aan raadino si fudud oo aan filaynaan ku kala tagnay bal culimo aan raadsan min sheekha loo tagay wala weydiiyay masaladii ka waranay ninkan wuxuu yiri salaadan hadaad dukato islaamiya oo hadalkayga salaada ka hormariso saddex dalaaqa iga furan mar hadii sida la yiri bis waa ka furantuu sheekh kala hadana loo tagay bal ka waran adiga bal wuxuu yiri islaamiya agtayda ku duko sheekhi labaad dhahay bal islaamiya agtayda ku duko bal saad tukanayso aan arko salaantii salaadii xiratay salaadii marka faatixadan in maqashiyo faatixada in maqashiyo bal saad u xiranayso salaadii salaantii waa xiratay faatixadii soo bilowday markii la marayo ghayril maghdubi alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalin wadaadkii marka sheekhi wuxuu yiri islaantani ma dukanba maxaa ka furmayo ma dukan wiil islaantani wax salaada oo inta dukajir ma jiraan wax xuruuf ay sixi jirtay ma jiraan wax xaraf ay makhrajkiis ka soo saartay iyo xaraf toosan ay ku dhawaaqi jirtay malaha sidaas awgeed islaantaada hayso maxaa dalaaqu muxuu mucallaq ku ahaa inay salaadu dhacdo salaadu ma dhicin salaad ma dhicin marka sidaas way ujeedada waxa weeye cibaadada ma dhismayso mana xirmayso mana guntanmayso hadii aan loo lahayn cilmi marka insha Allah ta'ala maanta waa bilow intaasan ku gaabsanaynaa ka bacdi kitaabka aan toos u dhaxgali doonaa hada wabillahi tawfiiq